maxaa kamaalow hooyada maxaa lahaa hooyadii waaye gabar naagtana la joogtid anaana uweyn markaas waxay dhahay marka videoyasha waxaan hooyada ka duubta meesha ma ka bixi kartaa maadaama hooyaday naag la qabo iyo ciyaal ay leedahay inta ceebtan ugu badanin marka muxuu isoo qoray maxaa lahaa ani qofka anaa qabo anaa aqaano beentan iga jooji beena sheegaysa maxaa dhaha been ma sheegayo qof oo kusoo wici karto meeqa qofa kusoo qorto ku dhahday naagtan waa naqaanaa ciyaala leedahay marka waxay dhahay maxaa lahaa qofka kusoo diray aabaha kusoo diray waa ogahay hanina ma ku dhalin marka xada hani way dhashay adina wax ma ku ogid hadda qofa barato waay hooyadeena way tahay hooyadii markay tahayna anaa og hooyadeena tahay maxaa lahaa bavisaal badanna waa haya marka waa blokeeyay miga telefoonka markaas miga qabana block isaare balaayadan iyo waxaan kala ordaa waa arkay laakiin ma jecel inaan mar walba macnaha aan xaaskayga waa maradayda oo kale way ilmihii hooyadood waa wax walba hadday meesha ka dhacaan mar jecel inaan ku degdega ma jecel ana cabsalaan ahaan intii taqaana xaafadana deganay magaalada deganahana macnaha dadka joog waa la weydii karaa may waa ku ogahay inaad ahayd anigu markii igu ka dambeysay iyadood aad iyo aad qof ka ciyaal jeclahay waa yaryahay dunida si ciyaarkeedu jeclayd maantana waxay mara ciyaal ma dhalin inay dhahdo ma oga macnaha inay dhahayso hooyadeed aad soo wacday taleefonkan ma aqaanay tiri waa hooyadeed ayada dhashay marka qofkan ficilada oo sameehayo marka aragnay waxaa noo cadaata qofkan qof sixran oo wax uu sameeyahay inaysan ogeyn muuqaal hooyadeeda inkire tan iyo gabadhaas maskiinta lagu dheelayay iyo waxaan beenta iyo caasinimada dadka waalidkiisa uu dhageysan waayey iyo wax walba qof walba runta u sheega oo u dhibsahayo uusan dhageysahayn horta gabadhaan ehelay leedahay daday leedahay waa la iskala xisaabtama xaqiiqa waa taas la isku daymayo waa wax lagu wada xisaabtami doono ama maanta aata ama berri aata saameynta ay yeelatana asagaa mas-uul ka noqohaya ninka mas-uul ka noqoha asaga ma fahan waa gartay salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu asxaabta sharafta leh waa mar kale iyo muuqaal cusub bartan aad iga dheeganaysaanna waa la kahmiliyo baro aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kusoo dhawaada magaalada yaafle xaafadda andashbaari si gaar ah haddaan sii tilmaamo waa findiroge waa bartii aan deganaa oo ku noolaan jiray waayana ku qaatay aniga iyo ugaaska iyo rag badan iyo dad badan oo asxaabta ka midi way wada garanayaan reer yaafle si guud baan u salaamaya waxaa dhinacayga fadhiya waa cabdisalaan inaan ka hor dhaco ma doonayo isagaa inoo sharxi doona laakiin barnaamijkan ka hadlayna ayaan rabaa inaan idiin tilmaamo marka hore waa barnaamijkii kamaal cabdul iyo barnaamijkiisii waxaanu joognaa gurigii reerka waxaanuna soo booqanay reerkii oo kaamil ah caruurtii waa kuwan dhinacayga fadhiya idima maqna laakiin waxaa inoo hadli doona insha allahu tacaala cabdisalaan bal cabdisalaan soo dhawow marka hore magacaaga dadka u sheeg bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdisalaan cali xaashi waa gartay waxaan rabnaa bal barnaamijkii dhacay oo ninkan kamaal cabdul gabar baa muuqaal kula jirta aabihiis baa soo hadlay hooyadiisaa hadashay gabadhaada najmo ayuu la hadlay adiga waa wada hadasheen odayga sababta ku kaliftay inuu muuqaal soo duubo waxaasoo dhan bal barnaamijkaa noo dhexgal oo noo sheekay anoon kaa dhexgelin oo kaa gogoynin waa mahadsantaha cimraan akhyaarta dhan waa wada salaamaya dhammaantood magacaygu waa cabdisalaan waxaan ahay hani muumin maxamed ninkeeda hani muumin maxamed waxaan isqabnay muddo 25 sano ah waa gartay waxaan isku dhalnay 8 caruur 3 waa dhimatay laakiin 5 aan nool hadda ما شاء الله الحمد لله واقف هاني وقبر ولا شيء المهيجة هو يدوده السبب أنا هايو آد هو ينتقي من لا قيمة له
ciyaalkeeda jecel ehelka jecel ay ahaa jirtay. waa gartay. adigu muddo laga jooga sanad iyo wax yar ama 2 sano ku dhowaad gabadha isbedel ayaa ku dhacay. waxaad moodaa in waxna soo dhex galeen. waxay bilowday xanaaq badan, dadka inay macnaha jarto. waa gartay. ehelka badan inaysan la hadlin, aysan waxba interest garayn. ciyaalka naftigooda in xoogaa aysa ashkuwen sidii hore isbedel macnaha ku dhacay. dadka xataa deegaanka ka fahmayna maxaa kugu dhacay yiri. muddo ka bacdi qur-aanna waa la saaray. muddo ka bacdi xoogaa maalmaha ka mida oo ahayd 27 bishii Oktoobar ma ahayd maqaan aan maraha. waxay naga codsatay inay aado. waa gartay. gabar walaasheeda oo degan Faransiiska oo idin la yiraahdo. iyada walaasheed miya? walaasheed. waa gartay. halkaas xoogaa madaxa kusoo dejiyay tiri. okay aan niri. walaasheed idil baa la yiraahdaa, waxay degan tahay Faransiiska. waa gartay. gabar kale la tan degan tahay Borlanga, magaalada aan la degan tahay. Borlanga. wiila dhashay magaalada nala jooga. ama ka wacada saaxiibkii way aadiyaad. على كل حال فرنسيسكا ماشي أنك سوقيني إن قبل صباح دي وابحذي إن ماشي فرنسيسكا أنك سوقيني وحن كأرجني اسطنبول أيضا أو كان كمال اللي هي أو كسر دوي هايو أو اللي هي حاسكي جواي أو كليبك كل يدتك الدعوذين اسطنبول كدعي إن dadkii magaalada joogay oo madadhan YouTube-kii wixii laga wadaa maxaa dhacayna marka calaa kulli halkaas nooga horeysay Kamaal iyo hadalkiisa. maalinkaas Istanbul gabadhii Faransiiska anaga noo aaday Istanbul la tagtay. halkaas ku ogaanay ka bacdi fiidiyodan daawanay waxaan aragnay meher afkuya ka dhacay oo 2 bilood iyo 3 bilood ka hor asna ah oo hana muumin ah. okaadi marka macnaha meherkan ma idinku maba ogeyn maba arkin hore loo ma arkin. aan kayna waxa soo dhan ma jiraan family ahaan. markii hooyadeed aabaheed ma nool yihiin kulli wax war ka haya lama walaalaheed aabaheed kulli xamar ay joogaan. marka meherkii markaan aragnay oo afgooyinoo ka dhac aragnay waxaan contact la sameynay oo aan raadinay si aan ugu sheegno waxaan waxa ay yihiin Kamaal aabihiis iyo ehelkiisa maadaama afgooy ay degan yihiin. nasiib wanaag rag saaxiibaday ah iska soo fariisaday oo reer afgooy ah iska reer afgooy isla markiiba gartay. Kamaal aabihiisa leela hadashay numberkiisa leesiyo leela hadashay. waa gartay. oo adigana rag ku garanaya. aniga rag yaqaan asiga rag yaqaan. waa gartay. arrinkan u sheegay Kamaal aabihiis madax horta gacmaha saartay. dadkii dhan fajacay ku noqotay. arrinkaas dhamaanteen markii hore fajacay nagu noqday markaan kaliibka aragna qof walba oo yaqaan ama ehelka macnaha wuxuu noqday qof oo dismoraal ah noqday. wax aan qaado weyn nal noqotay. okay ninka meherina marka aan u noqdo meherkan rabayna u noqdo. meherka marka aan fiiriyay waxa fadhiya meeshaas nin aan sida adiga cimraan ku aqaan ana waqaan isku xaafadaha jirnay. sida in isku xaafada wahay isku ahayn. waa gartay. waliba muddo 30 sano ku dhow aan ninkaas isku xaafadna anagoo dhalinyaraha isku xaafaday. waa nin laga yaqaan xaafada aan deganaa ee Soos Axmed Nuur Hayna la yiraahdo. Axmed Nuur Hayna waa gartay. sheekh wax meeriya dhinaciisa waxaan ka arkay Axmed Nuur oo fadhiya. sheekh markuu meerka jeediyahay ana kilibkan fiirsaday moogta. waa sax. sheekh markuu meerka jeediyahay 4 waxyaalood gabadha meerkeedu ku hagaaga midaan uga dan leeyahay waxa fadhiya weligeedii la yiraahdo Muumin Maxamed. Muumin Maxamed waana aabaheed waa qaana. waa sodoga macnaha. waa sodogay. Muumin Maxamed meesha uga ma jeedo. ninka fadhiya marka leeyahay waa Axmed Nuur. Axmed Nuur aabba oo dhiibaya gabadha haniyeed.
waa yaabna taasan kula siyaab dada waxay leeyahay marka gabadha aabaheedaaba dhiibay gabadha aabaheedaaba dhiibaa haye kiliibka xataa dib ha loo fiiriyo shiiqa iyo kiliibka dhan hadalku waa wada clear inta uu socdo haye marka axmed nuur ninka la yiraahdo ee muumin maxamed iska dhigay oo hadlaana muusiga la saaray u fiirsa kiliibka xataa dib ha loo fiiriyo okay codka axmed nuur ma la maqlaayo haye inta kale walaa shiiqa walaa qof walba waa la maqlaa ma faham haye axmed nuurka naftigiisaan contacta la sameeyey haye waa axmed nuur aan aqaan hadda nambarkiisaan hayay Haye. 2017 markaan xamar tagay oo xataa i yimid aan is aragnay haye arrinkan dhalinyaradii kale xataa xanaaqdada xaafadda ahayd waa la wacay ala kulli xaal odagii wuxuu wacay axmed nuur aa lala hadashiyaa layiri waa soo maha ninkaa aad hani aabaheed ha waa kan la hadal haye gabadha adiga soo nama siin istaafurla waxaan kaa soo hilmaamay cidda marka kamaal iyo hooyadiis iyo dadkiisa ehelkiisa axmed nuur waxay ugu tageen xamara loogu tago gabadha laga doontaba markii hore kabacda odaga inta sheekooyinka sii sheegaya odaga kamaal dhalo adeed u fiican waay maasha allah waan ugu dhacdo yiri inaad irtano xamaraan tagnay gabadhaan weydiisano waa nala soo siiyey annagaa markaas waxaan dhahnaa meherka haddaan ree afgooyanahay wiilka gurigiisoo ka dhaca okay imaw guriga marka adi noo imaw asaga laba ninoo kale noo yimi laba cunoo kale hor usoo wata marka ehelkiiba saas uga dhigaa micnaha hani ehelkeedii haye hadde hani ehelkeedu aabaheed muumin maxamed walaalkeed iyada la dhashay aad jooga xamar jooga hooyadeed makashee caliya xamar joogta markaas haye u fiirso waa gartay cidaanu xamar ee gabadha ka dooneen axmed nuur sii hooye habeedii hooyadeedna waa joogeen xaqiiqda marka la rabo waay aad iyo aad waa intaas anigu waxaan u aamusnay oo waxaan walaacan iyo balaayadan iyo waxaan kale ordaa waa arkay laakiin ma jecel inaan mar walba micnaha xaaskayga waa maradayda oo kale waay ilmahayga hooyadood waay aad iyo aad wax walba hadday meesha ka dhacaan mar jecli inaan ku degdega ma jecla cabdisalaan ahaan intii taqaana xaafadaana deganay magaalada aan deganahana micnaha dadka joog waa la weydii karaa may waa ku ogahay inaad ahayd anigu markii iigu kaa dambeysay aad iyo aad gudoomiyaha xaafadda andashbaari communityga inaa ahayd baan anigu ogaa ma aqaan hadda in laga calaa iyo kulli xaal ninka la yiraahdo kadib marka meeshii iiga wad odayga way kasoo doonteen iyo islaanta iyo wixii waa la yima kadibna way israaceenoo macnaha xaggay ugu yimaadeen isagoo laba wiil wata waa meherkii halkaas ka dhacay waa gartay neerka marka axmed nuur axmed nuur waxaa lala hadashiiyey ninka la yiraahdo cabdixamiid oo ah kamaal aabihiis caadi ula hadlay inuusan waxba ahayn oo been u sheegana waa arka markaas markay wada hadleen wuxuu ugu jawaab gabadha aan ku siiyey gabadhayda maba ahaynba cabdixamiidkii laftigiisii baa afcadaa lagu yirahaa haye iyadoo lala taagan yaha la yiri haye ja cabdixamiid muumin waxaa u addaatay waxaan in wax ka jir aysan jirin haye وعبدul macnaha cabdulxamiid weeyaan marka odayga cabdul ah waxa loo xaqiijiyey oo ogaaday dhalinyarada markaas meesha joogta dhalinyaro taqaana cabdixamiidna taqaan anigana taqaan axmed nuurna taqaan isku xaafadayn oo ganacsiyo waaweyn kule afgooy laakiin markii waxaasi dhacayeen iyaguma goobjoog kama hayan ma ogeyn waxaas war kama hayaan wax luqluq loola galay buu anaa sheega taas wiilasha marka cabdixamiid waa naqaani dhahay calaa kul adaga marka waxay xaqiiqsaday way soo wacay waa maqlo yir arrinka kilibka baraha bulshada gale anigu ma ogi wax geliyey baraha bulshada gale cabdixamiid waxa uu isoo diray iyo wixii aan ku wada hadalnay noloshaydii shay kamida meel ma gelin aniga waa gartay hadal isoo diray wallahi inaan meel gelin baalkii lahay instagramkii lahay oo haniyaala oo la jabiyey inay ku jiraan macquula oo wixii jabiyey ay banaanka u firdhiyaan waxaan maana aniga cabdisalaan ahaana kilib ama ku saabsan ninka la yiraahdo cabdixamiid ama la iisoo diray ama aan ku wada hadalnay 10 kilib aan ku wada hadalnay cabdixamiid aan hayaa waa gartay weliga isku mid inaan qof wixeeda aan gudbiyo ma fahamtay marka odagu muuqaalka markaa adigu kugu qancinayay aad iyo aad kuwa kale ugu qancihayaan hayaa وترى بدن oo afcad igu sheegaha way soo waca wuxuu yiri markii cabdisalaam ha arrinkan waa noo cadaaday annagana waa nagu dhacday adigana waa kugu dhacday beenana loo sheegay waxa ila socda sheekhi gabadha mehriyay oo adaga koofida wata meesha fadhiya
cabdisalaan sheekh cabdisalaan isna la dhahaa haye sheekh cabdisalaan iyo aniguba hadda waxaan wici rabnaa kamaal waxaan u sheegi rabnaa in waxaan wax ka jira aysan jirin maadaama anagu waalidka aan xaqiiqsanay waa gartay waa waceen waa la hadleen markay la hadleen kabacdi haddana igu soo celiyeen labadoodii haye waa u sheegnay dhaheen wiilkii waa naga qabta taleefonka in meherkan waxba ka jirin sheekh cabdisalaan xataa dhagiisoo ku dhibciyey waana loo sheegay waana naga yeela wiilkeenna wixii youtube-ka ku jirana oo meherkaas iyo wixii kala aba waxba kama jiraan ka saaraan iri yiri waa uuna ka saaraa uu yiri intaas uu sheegay cabdixamiid iyo shiiqo oo agtiisa taagan oo asla markiisa ila hadlay waa gartay intaas markay dhacday kamaal inta daawataa taqaano habeenimo ka saaray wixii clip meeshaas ku jiray ha waa laga wada macalkii Istanbul soo dhaweyn tahay kii meherkii wixii kasii qalqaatay nooga laakiin asaga kanaalkiisa automatically waa ka saaray waa gartay halkaas horta baashi oo meherka waa meherka markaan usoo noqday meherka halkaas horta ku dhamaaday xaaladiisa waa gartay cabdixamiid waa nin aada u fiican abti kale asna jooga ehelka ninka la yiraha kamaal si fiican contact u laana waa gartay odaga abtigiisa maraykanka jooga abtigiis kale oo norwaydan jooga kulli waa dad macnaha maasha allah aad iyo aad xaqiiqda qofka baniaadanka amina lama dhawano qaaladan la sameeyay waxba la sameeyay dadka la wada raacay waa sax ehel wuxuu ka soo jeeda aad aniga u fiican aan dhihi kara inta aan la hadlan ka arkay aad iyo aad contacti aan wada lahayn waan wada xiriiri jirnay kaliibkan hadda ah uu soo dhigo oo wiilkayga yar ah wiilkaaga yar ha uu soo dhigo meesha Sakariya sakariya kaalaab kaliibkan hadda uu soo dhigay oo soo dhigay cabdixamiid contacta fiican aan leenahay haye hal mar aab geeskayga waxay soo istaagay adoo raalli ah hal mar wax yar laabis ma gabadh yartaa kaar hal mar sii kaar bay rabtaa intaa muuqaal iska tag marka uu soo dhigay 4 su-aalood haye waa wax macnaa cajal wuxuu ka mid ma yahay aabaheeda wax ka rabtaa gabadha bes la hadal waa gartay kaliibkan hadda uu soo dhigay inuu saas kaliibka uu saa leeyahay miyaa inuu saa dhalma raba soo cunuga oo wejigiisa bombala saaroba uu caadi usoo geliyo walle ha cunuga wejigiisa bombala saaraya oo ma ku jiraa ma uu daarin laakiin sawir ahaan usoo gelishay haye kaasuu wuxuu ku dul qoray awowe yaa waxaan ha hilmaamin kan oo ku dul qoray waa Sakariya anuu igu hanjabaa markaas muxuu marka cunug ka rabaa ma anuu igu hanjabaa macnaha Haye. ogow kanaan haya camal muxuu ka hayaa marka muuqaalku haya waa muuqaalkaasaan rab bulshada markaan u caddeeyay haye muuqaalkaas wiilkayga laga duubay waxaa ka duubay qof anigu aan aqaano kamaalle yaqaan shacabkuna yaqaano waa hooyadii waa saas waa garta waxay ka mid tahay gabadhaanu markaan ogaano macnaha ehelkii iyo meel walbaba in gabadhaani sixran tahay oo sixir hayo okay in sixir hayo meesha nooga caddaata kaliibkaas hortahay waa gartay kaliibka 4 su-aalood aa la weydiiyaa wiilka 4taba waa uu ka jawaabaa laakiin isagu wuxuu yidhi aabihiisaa ka duubay aabihiis aa ka duubay oo nin cunugiisa kaliib ka duubaya sheeko ahan aan ka maqlayo ma fahan waa gartay laakiin bulshada sheegaysa qofka kaliibka duubay in aabihiis duubay iyo in qof kala duubay qofka su-aalaha weydiinaya soo lama arko ma qofkaasaa ka duubay mise qof aan ba joogin waa wuxuuba ka mid yahay muuqaalkaas gabadhaan inuu sixro ninkan waxyaalaha caddiihayo ka mid haye haddii uu rag yahay haye kaliibkaas ha daaro ummaddan ha tus waaya kiliibka anigu horta waa arkay kiliibka waxa weeye waa kiliib cod ah oo maxaan kuu ahay hooyadaa meeday cunuga su-aalo noocaas oo kale la weydiinayo wey oo la yaab dadka ha u daaro marka dadka ha u daaro sababta saas leeyahay gabadhaan gabar sixran waay runta markii la rabo xaqiiqdan la rabo sababta waxyaalaha ay ku kacaysa ma oga waa gartay marka ay soo bixi ma oga
gabadhan ilmeyga xaaskooda ilmeyga hooyadood ah aada iyo aada qof ka ciyaal jeclaay waa yaryahay dunida si ciyaalkeedu jecleed maantana waxay mara ciyaal ma dhalin inay dhahdo ma oga macno inay dhaweyso hooyadeed aad soo wacday taleefonkan ma aqaanay tiri waa hooyadeed ayada dhashay marka qofkan ficilada uu sameehayo marka aragnay waxaa noo caddaata qofkan qof sixran oo wax uu sameehayo inaysa ogeyn ah muuqaal baa jira aniga nin iisoo diray muuqaalkaas ninku iisoo diray waa iyada oo waxay leedahay anigu ilmo ma dhalin waxay u waday baan u malaynayaa markaas inay cabdul u waday baan u malaynayaa muuqaalkaas inaa aragtay in kale maqaan muuqaal noocaas oo ay leedahay anigu ilmo ma dhalin oo keligeed ah oo hadlayso oo aan wax ay video ah aan ahayne muuqaal mobile saa loogu duubay ah kusoo gaaray muuqaalka ma arag kulle waxay loo diray cabdulxamiid loo diray kulle waa isoo wada diriyey waxaan ku leeyahay gabadhan ciyaalkii inay dhashaa xataa ma oga hadda waa inkiraysaa inay maamo sharaf leh oo 5 ciyaal joogto oo ciyaal waaweyn u joogaan oo yaryar u joogo oo 23 jir ugu yahay 6 jir yar yahay u joogo ma oga maantali ma oga waa qof jug gaarto way hooyadeed ay inkiree aabaheed ay inkiraysaa marka qof saas normal ma dhihi karo waxa ay sheegayana macnaha ma aha waxay ogtahay ma xaqiiqda marka la rabo famil ahaan iyo dad ahaan kulli waa tashan gabadha in quraan la saaro insha Allah biidnillaahi alkariim waa lagu tashaday in ayada bal markaan lagu dadaala lagu tashaday in daawadeeda iyo waxeeda laga qayb qaataa lagu tashaday ninkan ujeed kale oo gabadhan ka leeyahay oo aan ahayn inuu ku shaqeysto waxay ogtahay mala gabadhan inuu inta meesha marba soo fadhiisiyo hadal oo yiraahdo ma gabar aan ciyaalkeeda aan ka warqan inkirayso aan ogeyn xasuusnayn inkir macnaha ma ka wada macnaha ma xasuusna aabaheed ma xasuusna hooyadeed ma xasuusna waxaan kamaal ahayn ma maqasho waxaan kamaal ahayn ma maqashaan ku kamaal una taqaan bis okay waayahay haddii kala ma laha haddaan usoo noqono aabihiis ninkan waalidkii iyo ehel buu leeyahay dadkii waa isfahmeen xagga ehelkii adiga kuu joogay iyo adigii iyo odayga waa isfahanteen adeeradii ciddii oo dhan waa wada hadasheen cid ninkan qabato oo tirahda war hadda niyahow waxani sax ma aha ma waayo oo ninkan macnaha la qabtaa waa su-aal fiican waay kamaal aabihiis eedadiis abtigiis adeerkiis kulligood waa ay la hadleen waxa ay la hadleen markii dambe fiidiyadii oo ka saaray meesha oo kusoo wada celiyey oo kusoo wada celiyaha waa gartay markaasay la hadleen waxa soo wacay odaga soo wacay way soo isla hadalna ayag cabdulxamiid hadda fiidiyadii wixii meesha oo ka saaray ninkan waa kusoo wada celiyey waa gartay waxaa la hadalnoo dhaha aniga eedadiis abtigiisoo maraykan joogaa la hadloo dhah waa u sheegnay cabdi waa ka saarahu yiri ma ka saarin markii labaad aan ku celina ama maalmii labaad aan ku celina anigana taleefon igama qaban u dhaha qabahayo hooyadiis ma ka qabahayo abtigiis ma ka qabahayo ninkaas nin naga jeesta waa yiri cabdixamiid meel aan ka gaarana ma jooga afgooyaan joogaa istanbul jooga waxba kama qaban kara maxaan qaban karaa dhaca cabdisalaan ani hadduu taleefonka iga dinsida maxaan qaban karaa waa gartay waa su-aal saxa waay aada iyo aad may waxba kama qaban waxba kama qaban kara xaqida marka la rabo marka kelimadan uu leeyahay cabdixamiida macnaha kelimo kale looga qaado oo la duubay oo laga yeelay cabdixamiid aabiis waaye ehelkiisa iyo kulligoodna contactigaan leenahay usbuuc haddaan wada hadlayna cabdixamiid ma fahamti waa gartay ma aha nin macnaha aan ishandadna ama aan heerkaas ilaahay nama gaarsiin macnaha contacti fiican leenahay qofka aan waxba maqlayn ee caasiga ah ee waxaan shilin uun inuu raadiyo leetahay oo gabadha maskiinta ah oo sixro jiran inuu marba meel fadhiisiyo raba oo lay ku raadiyo waa asaga gabadhaan maskiinta eed ma laha waxaan kamaalayn ma maqasho hadda waa wuxuu ku xiro waay number ku xiro waa xaqiiqda marka la rabo waxaan waa calaamadihii lagu yaqaano waa bahalkan
adigu waxa aaminsan tahay inay tahay sheekadan sixir qof walbo dhageysta gabadhaas hore oo qoy jiray qof kasta oo hani muumin oo qoy jiray oo waxa hadda ay ku hadlaysa dhageysta gabadhaani waa la sixray berma waxa la soo baday waa la sixray kelmadda koowaad ay ku sheegay qof walba asal lagu ka jiray ku soo waca laana ma qof lagu qoy jiray waa dhacdhaciyo ma lagu qoy jiray ma hooyo edebla oo laga yaqaan magaalada hadiya hooyo sharaf leeyahay marka qof shalay sharaf iyo wanaag ku barata maanta marka aragto soo si kale oo hadlay adiga qofka xataa waa dada waxay dhan lagu ka jareen dadku waxay dhan xal waa seexa weyn marka waa maqalnay waa seexa weyn gabadhan waa sixran tahay waa sixranta lagu wada celiyo bismillah marka waxaan min shaytaan rajim umada daawata fiidooda iyo tubida waxaan leeyahay gabadhaasi waa xanuunsan tahay waa gartay ha u duceeyeen allah caafiyo in ilaahay caafiyo ha u soo duceeyeen waxa ay soo bihay ma oga qaladkeeda maaha sababta anagu marka hore anaga dhan waa wada xanaaqnay macna ehelkeeda waa xanaaqay macalinku waa xanaaqay laakiin waalid waxaa soo bi karaa ma jiro waalidku waa gabadha waa dhihi kartaa ninkayga waa nacay haye wax ba'as laa ba'as waa gartay laa gabadha ma dhihi karta ilmahayga ilma ma dhan ma dhihi karto aaldarigi ma dhihi karto wax macquula maat waa impossible waxaan caadiyin waa cabdisalaanow waa kelmadda ugu yaraan reer yaafle magaaladan hadda joogo ugu yaraan 60 qof baa iga soo wacday because aniga lambarkaygii Sweden markaan imi baan sitaa ma bedelin yaaflena waa magaaladeedii anigu aan deganaa wallahi xalay 12 habeenimo nin baa ila hadlayay macnaha qof kasta wuxuu la yaaban yahay halka kelmad oo dhinaca ilmaha ah ما شاء الله إلهي با أبدك سيي أو ولا شيء الحمد لله waxaan aaminsanahay أنا مؤمن إن عيال كذا أنا لفت جيجو dad saaxiibaa baynu ahay oo magaalada wada degan hanina gabar walaa shay ah markii hore oo muuqaalka anigu aan duubayayna waxaan lahaa Cabdisalaana waa walaalkay hanina waa walaa shay caruurtuna waa caruur yar yar oo aan waalid u ahay hani hadaanu reer yaafla ahay asluub akhlaaq gabar shaqaysata oo meesheeda u shaqo tagta kadibna gurigeeda iyo reerkeeda joogta oo caruurteeda jecel baan anagu dhan ku naqaanay markaantina waa unahay laakiin waxan goormuu ku bilowday baa isleedahay oo ilaa goormaa la taabtay isleedahay wallahi nadara waa sanad iyo barkoor 2 sano ku dhawaad waay ana waxa oo gabadhan ay aan ku aragnay dabeecadahan xanaaqa iyo dadkii macnaha ilaa hadda jirtay yaraysay gaabiday xiriir dadku dhan ay gaabiday waa gartay aniga kontaktiga xataa waa gaabiday ciyaalkii kulli ilaa markii dambe xogaa qoran aan saarnay markii dambe inaad waa baxa xataa macnaha in bal ay soo degta xataa u baxda anagu xataa waa bixi kartaa gabadha walaashiyaan bal abo ku soo qaadaa waa gartay daaris marka waa muddo sanad iyo bar ama 2 sano ku dhawaad waay midda kale hani dabeecada balaad xataa taleefanadan ay waxaan xataa dadka xiiseeya ma ahayn waa dadka wacwaca xataa ma ahayn dadka xataa social media daawada ma ahayn waa sanadii iyo 2 sano ku sheegay ay bilowday inay macnaha ay taleefan smart ay ma xiisay jirin xataa dadka xiiseeya xataa ma ahayn dabeecad lagu yaqaan ah Cabdisalaanow waxa kaloo jirtay cod isoo gaaray baa jiray oo codkaas wuxuu ka yimi kamaalkan hooyadiis waxaana loo soo diray dhinacan waxa fadhida kaamarada ku qabano ma rabno laakiin waxa fadhida najmo oo gabadhaadiya najmo hani baa ku dhashay soma waa gabadha oradayda hay goormay gabadhan dhalatay ta ahaanada ku weydiiyay wallahi 98 hani baa ku dhashay marka gabadha oradka waa gabadha orada ahay okay marka gabadhan muuqaalka codkaas yaa loo soo diray kan Kamaal hooyadii codka Kamaal hooyadii ay leedahay hooyada la hadal ha naga qaado wiilkayga ha ka qaado muuqaalkiisa horta Kamaal hooyadiis iyo ehelku contacti anigii najmina lahaayeen labadeena waa gartay waliba Kamaal hooyadiis badana najmay ay la xiriir jirtay oo kaliibka hadda cunuga laga duubo anagu ma ogeyn haye afgooya loo diray waxa soo diray waxa oo najmo soo diray waa Kamaal hooyadiis waa gartay ma fahant codkan ay leedahay
nagacishta macnaha youtube-ka waxaa u saaran sawirkiisa ها فيسبوك واتسابك ها waxaa soo usoo dirtay najmo ii sheegeen hooyadiis kamaal hooyadiis marka najmo waxay u dirtay hooyo u dirtay hooyadii u dirtay wixii macnaha suuqa lagu daadiyay oo instagram-ka laga daldalay allahu yaclam qof jabshi inuu isugu jabiyo xataa allahu yaclam ma sheegi karna anoo kuma dambaabi karo waa gartay waxaasoo gale laakiin waxaa loo soo diray ugu horreeyey najmo abiya yaa kuu soo diraaday كمان هذا كونتاكت كلام لنا ولي ماي markii oo videosha oo la soo dhigay ha Instagram kama kaas soo wacday loo mar kama leeyso ku soo wacday marka ma leeyso waa contact waa la sameeyay gabadha markaas ku soo wacday oo ku soo dirtay muuqaalka iyo codad kale waxay ku soo dirtay ما يعقب يصدرين ويسوى علي من أنت هوري عدكي وحال ماشي كجرا حدا هوري عدك ما أقل ماشي وحقليه لكن أكو في الكرا مركز حتى هوري وقتوجا هو إذا أنا بعيشه أما كحدا هو إذا قالت كلام مسكالو مين كان حتى قالت كولي هاي هذا قفل أيكو إسقى سل جوكان لكن هالقف على ساني قالتك كمان قالت كولي هاي وحنا أنا لحد لاي مر واتساب وحلا ودوي وحنا وشادي ويقولوا ما يسوى رنت مركي ويلقى مرة رنت وشاكتي ونديده هو إذا لعدينا مركز تهلعيون هذه ما يلا هذا كمان ها كمان مرة أنا لهذا كول أنت مركز واحدنا أوغاني هي maxaa ku tiri محاجة هاي ميكروفونك واحد مقول له وين كرنا قاعد خوصة محلا كمالو هو إذا محلها هو إذا واي قبرت ناكت أنا لجوكتي أنا وين مركز وحيدة هاي ها عرضها marka videosha waxaan hooyada ka duubtay meesha ma ka bixi kartaa maadaama hooyaday naag la qabo iyo ciyaal ay leedahay inta ceebtan ugu badanin marka muxuu isoo qoray maxaa lahaa ani qofka anaa qabo anaa aqaano beentan iga jooji beena sheegaysa maxaa dhaha been ma sheegayo qof oo kusoo wici karto meeqa qofa kuusoo qorto ku dhahday naagta waa naqaanaa ciyaal la leedahay marka waxay dhahay maxaa lahaa qofka kusoo diray aabaha kusoo diray waa ogahay hanina ma ku dhalin marka xada hani way dhashay adina wax ma ku ogid hadda qof aa barato waay hooyadeena way tahay hooyadii markay tahayna anaa og hooyadeena tahay maxaa lahaa baviisyaal badanna waa haya cadaymo badan marka way blokeeyey miga telefoonka markaas miga qabana block u saare ha blog isaar waxay dhahay aabaha duqa u sheeg inuu waxaan dhan inay dhinaciisa ka socoto waa ogahay beentan iga joojiya adiga inuu cabsalaan aabaha yahay wuu og yahay laakiin wuxuu inkirsan yahay in ay hooyada tahay cajiib waa wax cajiiba waa aad wax cajiiba ma fahanti waa arrin aad cajiib u ah haddaayta bilowgana waa sheegay ana horshayn 30 sano isqabna haye waa meerkii gabadhan ma Sweden ku dhalatay mise xay ku dhalatay najmo iyo maxamed waxay ku dhasheen Soomaaliya ku dhashay saddexda kale isbitaalkan yafla ku dhalatay kuwa ka dhintay oo kale xagee ku dhashay Soomaaliya ku dhashay saddexda oo saqiirta waa gartay waxa ajaayib ciyaalkeena dhalay waa sheega asiga sheegay umada daawaysa waxaan rabaa inaan u sheego 25 sano horta hane ilmeyga hooyad aan qabay ma fahant waa meerkii ugu horreeyaan sameeyo waa gartay ma sameyn meer kale wali waa kii kuugu horreeyay kuuguna dambeeyay waa isaga la waa gartay nolosheeda meer kale ma gelin haye on kaas ka waa gartay marka ma fahmin koo badan waxaan arkaa ciyaalka waa la sameeyay ana baan waaye bebe baan intay socda askiyar aad iyo aad baan intay socda intaas waxa iska ilaalihay macnaha bal cagaha u dhig laakiin hadda afka kama qabsan karo gabadhan gabar jiran oo la sixro waa waxa ay sheegayaan ogeyn waay ina marka bulshadan intay ku sii tarax tagi lahayd aan hadlaan ku qasbanado waa sababta maanta inaan ku hadlay ugu qasabto macnaha muuqaaladii YouTube laba bilood ay socdeen waxaan ahaa kelmadteeda lagama maqal maalin koowadan soo fadhiisan kare ma fahant waa gartay laakiin waxaan arkay wixii xati ka sii baxayaan hadda been fakatana waxa la run noqotaa hal beenta tirada ka badan lagu celceliyo run bay wakaataa run noqotaa ninkan waxaad moodaaba nin suba soo hadlay iyo wax gabar jiran oo maskiin oo wax sheegan ogeyn inta soo fadhiisay oo wuxuu rabay sheega
wax allaala wuxuu rabo sheegay shilinkaasuu ka raba asag ujeed kale kama laha ujeedo kaleo kulli haba yaraata ma jirto inaad xaqiiqda markaa rabto wax walbana waa ogyahay wax walba inaan ciyaalkan dhashay in la qabo kulli asagu waa ogyahay waa gartay familkiisii dadka dhammana waa u sheegeen aabihiisa u sheegay adeerkiisa u sheegay abtigiisa u sheegay wax uusa ogeyn wax walbuu sameeya waa wax uu kas u sameehayo iyo gabadhaas maskiintana sumcadda ka dilo oo ku dheeldheelo ujeed kale ma laha ayadu qof waalida 10 marna ku celiya hana ciyaalkeeda waxa ka jeceshaa male ciyaal YouTube ciyaalkeeda inay maanta wax soo dhigto aad lagama yaabo laakiin ma oga waxay soo baheed aad iyo aad waxuma marka waxaan dhihi lahay tan iyo gabadhaas maskiinta lagu dheelayay iyo waxaan beenta iyo caasinimada dadka waalidkiisa uu dhageysan waayey iyo wax walba qof walba runta u sheega oo u dhibsahayo uusan dhageysahayn horta gabadhaan ehelay leedahay daday leedahay waa la iskala xisaabtama xaqiiqa waa taas la isku daymayo waa wax lagu wada xisaabtami doono ama maanta aad ama berri aad saameynta ay yeelatana asaga mas'uul ka noqohay ninka mas'uul ka noqoha asaga ma faham waa gartay waxa kale dhila dadka youtuberada ayagana in gabadha waxa ay sheegaysa ma oga xaqiiqa gabar sixran waaye qofku markuu sixran dad la sixrada Soomaaliya uguma horeyso aad u badan yihiin uguma horeyso qofku wuxuu sheegaa ma oga markii qofkii sixran waxaan ma yaqaan qofkaas aad iyo aad qof kale ehelkiisa ma yaqaan caruurta contact ma la leedahay hadda maya ayagu hadday waa ka qabahay inta markay joogto ayagu hadday waa ka qabay hooyo caadi waa hooyo waa dhahay markii la hadlaa hooyo waa dhahay xalay waxaan arkayay in iyadoo soo baxday oo diyaarad soo raacaysa camal inta hadda timi wax xiriir ma la samaysaa abti maya aba ma la shadi okay maya lama hadlo adiga hadda la hadashid maxay ku oranaysaa wallahi ani haddaan la hadlo waxa ku saabsan YouTube-ka iyo Kamaal haddana kala hadlan caadi ila sheekaysay laakiin baabkaas haddaan soo qaado macnaha dhag waa loo kacaabo qof qataaran waa meel ku qataaranta waaga ciyaalka waxa soo qaba ciyaalka saa u sameey haddaan telefoon aan ka wacdo waa yeeli gabadhaas laakiin haddaan ku soo qaado baabkanbo habarteeda ka gabadheeda haday ku soo qaado baabkaas bas waay marka baabkaas kala hadashay maxay ku dhahdaa gal waa dhibi macnaha wax dhibay waxa ka dareemay inay dhibaysa ka dareemay ma fahant marka dadkan YouTube-ka ka hadlaa waxaan dhihi lahaa waxa sheegayaan iska hubiya xaqiiq maanta inaan sheegan halkaan u fadhiistay ninkan beenta uu la gebgeb leeyahay iyo dadkaan u baxshay macnaha hadda anna waa ay kan ayaguna beenta la gebgeb leeyihiin in maanta xaqiiqda la ogaado waxaan ka soo fadhiistay waa gartay hadda laxal iyo beenikii rabaa sii wato laakiin xaqiiqdu taas waay waxaan kaloon ku ganaanidi lah gabadha maskiinta walaashiina hal u soo duceey ilaa inuu sixirkaas ka furo ummadda ehelkeeda iyo waxeeduna insha Allah waa la tacaali doonaa waa sida ugu quruxda badan ula tacaali doonaa bidnillah alkarim laakiin soo duceey ummadna Muhammad midda kale in sheegan waxay tahay waxa ayaala suuqnimada iyo waxa caasinimada iyo wax walba madax adeeg isku darsada waa cunugan way asaga focuska saara sixirolaha weyn haddaad cid focus saaraysan asaga sixirolaas focuska saara inta diilahay gabar maskiina waxa sheegaydo sixirna waxa ay sheegaysaa aniguna ku mashquuline sixirowga gabadha sixirada ku shaqeeyahay meesha soo fadhiisay ku mashquul asaga intaas rabina uga baxo waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waalidka iyo barnaamijkan inay ka hadlaan oo ummadda u cadeeyaan iyo barnaamijka marna ma isku dayaan mise waa su-aal aad iyo aad u fiican shalayaan hooyadeed aabaheed walaalaheed kulli aan halkool isla wada galnay taas runtii waa isku canaan shalay in gabadha laga sidii la moodo macnaha qof walba oo goonidiisa uga xanaaqay waa gartay qofii inta la moodo qof walba ma waxaas soo biday oo ka wada xanaaqna kulligan waa gartay inay shalay qalad ahayd kulligan waa iswada tusnay in gabadha garabkeeda la istaagana ku tashana shalay ana cabsalaana saaka hadlo bilaabay waa gartay ehelka kale insha Allah waa soo hadli doonaan waxaan rajeeyaa insha Allah
aan aad iyo aad u rajeeyaa macnaha in Kamaal familkiisi iyo familka gabadha oo wada jira sababta Kamaal familkiisa aabihiis hooyadiis kulli dad waxaan raali ka ah maaha aad iyo aad raali kama ah waana u sheegay ninkan waxba ka maqli waay in ayagoo wada jira familkiisa iyo familkeedu insha Allah kaliya in la soo dhigi doono mar dhow rajiha bidnillah karim hadii ilaahay taasan bulshada ummadda Soomaaliyeed loo tii ugu dambeydana inaan taas soo binaabalana insha Allah hadii ilaahay markii Kamaal familkiisi iyo keedii isla soo fadhiistaan waxaanay baadil yihiin ay sheegaan hadda Soomaali waxay sheegayaan laga rabaa marka taasna waa bal inaan soo binaabalna karim ma dhaqan waxa jira Soomaalidu niyo social media hadba qofkii ku dambeeyay iyo wax sheeka noocaas iyo hiyiraac iyo nidaamyo badan oo Soomaalida qaar ku badan baa jira laakiin mar hadii waxa la yiri hadii fooli timaado guda qarsi ma jiro sax xaajadu waa dhantahay aad bay u dhantahay inaasan ku soo gabagabeynayna maxay kula tahay wax kale oo ku haray oo aad isleedahay waa dhigi kartaa wallahi waxaan yaaro kala ma jira in gabadhaas loo soo duceeyo miskiinta in loo soo duceeyo intaasan ku ganaanudi lahay anna aad iyo aad ma santahay guriga maanta ugu soo boqotan oo ku faraxsanahay aad iyo aad magaalada deganaa jirtay xaqiiqdii markaan u noqdo aniga markaan wadanka soo galay dhinacaas waxaan ka soo galay dhinacaas koonfurtan ka imi maalmaan ka imi sharciga markaan qaadanay kadib ayaan xaggiisan u jahjahaynaynay adrees baan soo qaadanay magaaladaana nimi dadkiina soo dhaweeyey oo magaalada nagu soo dhaweeyey xaafadan Andashbari khaas ahaan hani Caasha Dhimbil Sano Ubax Araale dad badan baa kamid aha oo hebel iyo maanta hadaan rag iyo dumar tiriyo aan la yaabaysa adiga kamid aha macnaha qof anigu ma ahi cirka ka soo dhacay ee qof xaafadii iyo dadkii ka warhayay baan aha marka taasna waxaan leeyahay waxaan arkayay waa iyaga muuqaal gooniyan ka sameyn doonaa laakiin dad YouTuber ah baa jiray oo qaab maaragtay heeca ahaan ah u hadliyay iyagana waxaan rabaa heeco inaan gooni uga hadlo laakiin anigu waxaan ahaa nin xogogaala ilaahay marka waxaan ka rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed hal codsiyaan wataa hani gabar walaashay guri buuxa ku jirtay ubadkeedii dhexda ugu jirtay odageedii la joogtay sharaf labay ahayd haddana waxaan ilaahay uga rajaynayaa bal in ilaahay sidii sharaftii aan shalay ku bartay in maaragtay ilaahay dib ugu soo cesho caafimaadkeeda ilaahay u soo celiyo aynu u ducayno insha Allah ta'ala ilaa haddana sharaf iyo karaama leedahay walaashay cisi baan u hayaa karaamaan u hayaa ma aha aniga inaan maagayo waxaan hal mid ku darsanayaa iyadoo ka hadlaysa Sweden baa imaanaya konta ku boqol sheeka noocaas aniga waxaan ahay nin social mediaha caanka ah shaqadayduna tahay YouTube-ka una haysta macnaha fasax u haysta ogolaansho u haysta oo Sweden ka diiwaan gashan baan ma ahi macnaha waxa laga yaabaa inay dad isweydiiyaan qof mushaharkiis baan waxaan u bixiyaa cashuur laga qaada macnaha ma iga afaan laakiin xaqiiqada dhabta dad badan baa og 15,000 oo kron waa sax macnaha 15,000 oo kron dadka baska wada bay xaasil ugu soo hartaa baan u malaynaa shaqo walba waa ogolaanshaha cashuur baan bixiyaa ma aha aniga cidna ina uga haybisanaya ma aha walaashayna hadalka ay lahayd isaga ku soo yiri wadan sharci baa joogta laakiin wadanadani waa wadanadii laga keenay qofku inuu xorriyatul qowl ka hadli karo waxana anagu falanqayn u baan meesha u fadhinaa waaba garanayaa de anigu wixii xaq lagu leeyahay iyo waxaan xaq lagu leeyahay marka taasaan ka oranayaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa marka walaal in ilaahay sidii khayr uu yeelo oo gabadha walaasheena ilaahay uu soo habeeyo saaxirkaasna in aabihii maqli waayay sixiroolaha aabihii maqli waayay sixiroolaha abtigii maqli waayay sixiroolaha hooyadii maqli waayay sixiroolaha ku andacoonaya wax aan jirin ku andacoonaya in ilaahay bulshada Soomaaliyeed oo waliba reer Istanbul xataa inay arkaan bay ku fiicnaan lahayd bartaan bulshada ay ka bartaan aad iyo aad intaas baan ku soo gabagabeynayna Cabdisalaam walaal aad baan kugu mahadcelinayaa 100% waxaan leeyahay gurigaaga sida quruxda badan aan ugu soo dhaweysay aad baa u mahadsantahay insha Allah intaasaan ku soo gabagabeynayaa waxaan idinkaga tagayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh nooli kulanteed inagu dib baynu isugu dambeynaa reer Laakaha Media